mudanayaal iyo murwooyin soo dhawaada dhammaantiin meel walba oo aad daafaha dunida ka joogtaan oo ku soo dhawaada machadka Darwiish Academy. qaybtani waa qaybtii sare waxaan weli ku dhex jirnaa qulqulkii casharadii taxanaha ahaa. waxaan qaybtan kaga hadlaynaa hoga tusaalayn iyo talo iyo taladaas aan ku siinayo sababta kuu siinayo iyo waxa aan ku leeyahay jooji sababta aan ku leeyahay u jooji waan ku tusayaa. muuqaalkani waa muuqaal xiiso leh haddii aad suuqan muddo ku jirtay ku wareersanay sababta u khasaaraysid iyo sababta u faa'iidaysid aadan haysan jahayn iyo hoga tusaalayn muuqaalkan wuxuu kuu noqonayaa muuqaal hoga tusaalayn buuxda aad ka heshid kuna caawiya. waxaan ka hadlaynaa talo aan siinayo kow ardayda machadkan Darwiish Academy ku jirta. taladaas oo ah mid adig ku caawinaysa. Soomaalidu waxay tiraahdaa taladu iyadu kuma noole adaa ku nool sababta aday ku anfacaysa waana muhiim inaad qaadatid. talo ardayda Darwiish Academy ku jirta maadaama aan anigu suuqan ku jiro isticmaalo qaab dhismeedka suuqa kan khibradna aan u leeyahay waxyaabaha kala duwan ee suuqani sameeyo waxaan hubaa taladeedu inay ku caawinayso. aan rabo inaadan haddii aad suuqa hore ugu soo wareertay aadan ku wareerin. haddii aad cusub tahayna oo aadan kooxo kale ama meelo kale ama koobo kale aad waxba ka soo baran inaad ku caawinayaan sirta tan aad helaysid aadan jabayn oo noqonaysa qof guulaystay suuqana guulka gaaray. talooyinka ku siinaya waa maxay? jooji adeegsiga qaybta tan aan kaga hadlayo. qaybta tan jooji qaybtan aan kaga hadlayo. bilow adeegsiga qaybta tan aan kaga hadlayo waa muhiim. okay maxaan kuu leeyahay jooji adeegsiga qaybtan waa maxay sababtu? kow waxa ka mid ah waxaa joojinaysa waxa la dhaho indicators, RSI, stochastic, moving average, waxyaabahaas oo dhan Fibonacci-ga inaad joojisid waa muhiim. waxyaabaha indicatorska iyo qaybahan kale oo halka ku arkaysid waxa kale aad joojinaysid adeegsigiisa support iyo resistance. ma aha inaan ku leeyahay ama aad taagay support and resistance wax jira ma yes dad ba u shaqeysaa ku shaqeysta laakiin ma aha laakiin waxa aan ku leeyahay waxa weeye haddii aad machadkan qayb ka tahay isku day in aad iska joojisid support iyo resistance adeegsigiisa. sababta aan ku leeyahay u joojina waxaan ku tusinayaa waxyaabo badan oo quseeya iyo sababta aan ku leeyahay. okay marka inta fiirisid maxaan kaloo ku leeyahay jooji indicatorska adeegsigiisa oo dhan batatan. maxaan ku leeyahay marka bilow? waxaan ku leeyahay bilow adeegsiga qaybta tan. kuwan waxa soo hoosgelaya waxyaabo fara badan oo dadka suuqa kan lagu wareeriyay oo ay ka mid yihiin waxa weeye waxyaabo fara badan oo loo ekaysiinayo market structure-ka qofkii markuu arko uu cararayo. intaasoo waxa weeye harmonic patterns waxyaabo saa loo sharaxayo yani kadib halkan laga keenayo Elliott wave saa loo yani qofku uu dawaqaya xisaabo badan wixii oo dhan qofku wuxuu wow waxa kan yani waxna waa waxa weeye waa waxa qurxiya. tusaale kale maanta haday kaajo ku hayso oo aad cunaysid waxa weeye aad haysatid waxa weeye de saddexdaada waqti aad cunaysid si caadiya ما شاء الله بس هذا دور شيء حلوة وواحد قرحينية معانية ما عرفتيها وحقوق كمار ميكرو مركا وواحد ديزاين هذا وعرفت كيك مركا لسمين وحد وش لقى وقرحين اتراكت يعني ومع مركا وحن هارمونيك كان إليوت ويف كحياة صار لو صار يليكس waxa la rabo dadkii in looga dhigo wax weyn waxa kan
oo khatara oo dadkii lagu soo jiray laakiin ma aha xaqiiqada market structure-ka. Market structure-ka waa wax fudud oo qofku haddii uu waxaan waqti yar geliyo uu baranayo, waana idin tusayaa sida ugu fudud oo waddada ka duwan waxaa ku arki doontaa macadka kan casharadiisa waxaad hore usoo aragtay wax ka duwan xataa haddaad suuqa kan muddo ku jirtay. sababtaas way sababtaan kuu leeyahay iska jooji waxyaabahaas oo dhan yaysan ku dawaqin waxa iyo xariiqimahan badan oo maanta dhan saa isku daba dhigaysid iyo wareeri qof inaan wax rabnaa wixii aad ku dareentid raaxo maanta guriga haddaad halakan warqad yaal halakan buug yaal halakan wax kale yaal waa dawaqaysaa laakiin guriga markuu nidaamsan yahay si shay walba meesha ka doonaysid iyo sababta u dhigata meesha tan aad ogtahay inuu meesha ta ku habboon yahay waa ku raaxaysanaysaa waxaana dareemaysaa deganaansho waa sababta kuu leeyahay iska jooji marka adeegsiga qaybta tan bilow qaybta tan adeegsigeeda oo waa maxay qaybta tan marka waa maxay waa trailing waa muhiim traillineska qaybta dhexe baan aad uga soo hadalnay waa muhiim qofku inuu adeegsiga traillineska bilaabo traillineka waa muhiim inaad adeegsatid waa jiheeye qeexidiisa oo dhanna waa ka soo hadalnay wax market structure la dhaho inaad isna adeegsatid oo bilowdid qaab dhismeedka suuqa kani waxa uu yahay meesha uu ka samaysmo waxa kaloo adeegsanaysid waxa weeye patterniska suuqa iyo calaamadaha uu sameeyo inaad aad u adeegsatid waxa kaloo soo raaca nature-ka suuqa wuxuu suuqa hore u sameeyey inaa isagana mar walba backtesting ku samayso oo la socotid guud ahaan marka indicator-ka joojisid qofka markaa leedahay waxaa jooji waa inaa u haysa badiil waxa la dhaho qofna ma dhihi karti maanta jooji waxa ka haddii maanta qof u furan yahay kabar aad tiraa iska xir kabarka kan balse kabarkan qofka nolol ka soo gelaysayo meesha tan ama maalin yaa wax laga gadan ama yuusan waxa weeye maalin waxa laga gato yacni uu ku meeshiisa uu ku qanacsan tira jooji waa inaad siisaa badiil aad tiraahdo halakan income kale kaasoo geliya waxaan bilow marka anigu hadda tan jooji soo kuma oran hadaa ku faa'iidaysa ku khasaarta ku wareeraysid aad bilowtan adeegsiga chartska la sheekaysa chartsku waa maxay waa candlestickski patterniski market structureki natureki wixii la isku geeyo dhan waxa la isku dhahaa chartska la sheekayso mar walba oo chartska la sheekaysatid waxa weeye waxaan hubaa inaad suuqan guul la taaban kara aad ka gaaraysid I'm sure anaa huba taas anaa ku guulaystay anaa adeegsaday ardayda macadka kan muddadaas ku jirtayna maanta ka aflaxay oo kumanaanka samaynayana waxaan bay ka sameeyeen market structure-ka iyo awoodiisa iyo qaab dabiiciga aan idin tuso tusaale marka tusaale aan idin tuso aan tagno marka qaybta tan mudanayaal iyo murwooyin markaan leeyahay aan tagno qaybta tan tusaale oo kale aan jarno inta tan suuqa markaa fiirisa suuqani muxuu sameeyey halkan haddaad horizontal line-ka soo qaadano dadku sababta support iyo resistance-ga baan ku bilaabaynaa idin leeyahay jooji qofku marka uu adeegsanayo suuqa kan waxa la dhaho support iyo resistance sababaha uu adeegsado baan rabaa inaan idin tuso idinna la wadaago qofkani markuu arko halakan tusaale oo kale in halaka wax ka dhaceen tusaale halka haddaan nimaano aan soo qaadno inta tan structure-ka suuqa jarno waxaan idin tusayaa horizontalku qofku soo qaadanaya wuxuu dhigayaa meeshii u sarreysay uu suuqu gaaray oo halakan ahayd okay kadib wuxuu dhigayaa halakan qofku meeshii u hooseysay kadibna wuxuu dhigayaa meeshii u dhaxaysay ilaa qaarkood meelahan kale sii dhigdhigaya okay markaa fiiris marka horizontal line-ka qofkii wax kale ma adeegsan horizontal line-ki chartski buu saaray halakan waa ujeedaan meesha tan bari waa laga celiyey meesha tan waa laga celiyey halakan waa laga celiyey halka waa laga celiyey 1 2 3 okay halkaasoo marka focuska saaraya qofkii wuxuu leeyahay okay halka suuq waa laga celiyey markaad fiirisid meesha tan meesha suuq waa laga celiyey ku leeyahay qofka okay halakan waa laga celiyey halakan kalena waa laga celiyey halakanna waa laga celiyey ku leeyahay halakanna waa laga celiyey okay bartaa markii laga celiyey wuxuu leeyahay halakan waa laga celceliyey iyadana
meesha waa laga celiyey okay halka waa laga celiyey leeyahay bas markaad fiirisid inta tan muxuu sugayaa qofka kan wuxuu leeyahay halkan 1 2 3 sugayaa halka hadday saa usoo taabato waxa weeye hosel baa usoo raacaya hadday halkaa jabsatana waa arkaya kadib maxaa dhacay mudanayaal iyo marwe qofku wuxuu leeyahay allah yes waa jabsatay buu leeyahay qofkii okay way jabsatay muxuu leeyahay marka waxaan sugayaa tusaale kale wuxuu leeyahay qofkii lacagta halka uu ii jabsatay okay maxaan sugayaa buu leeyahay waxa la dhaho pullback tusaale kale haddaan fiirino halkan aan mar kale idin tuso waxay samaysay halkan waxa ay samaysay lacagta tani qofku markuu halkaa joogo wuxuu leeyahay lacagta te halkan way jabsatay okay wuxuu leeyahay marka waxaan sugayaa retest breakout meesha tan way jabsatay retestaan sugayaa kadibna all the way up buy baan sugayaa buu leeyahay qofkii inay lacagtani ii aado buy sababta wuxuu ku leeyahay way jabsatay shuruucdeeda ii samaysay trailineka halkan ay jabisay marka waxaan sugaba waa inay lacagtani bartatan ka dhaqaaqdo oo ay aado buy sababta maxay ii samaysay shuruucdeeda ii samaysay okay aan fiirino marka waxa dhacaya halkaasuu ka sugay qofkii ritastay samaysay ka dhalkaa baygaa baa khiyaamay way soo taabatay wuu tegay suuqii kadib wuxuu sameeyey fiiri marka isaguna wuxuu ka sugayaa inay buy aado balse wuxuu suuqu sameeyey fiiri u dhaqaaqay uu soo laabtay halkaasuu ka galay stop losskiisu halka dhigtay wuxuu ku galay buy wuu ku galay halkaasuu ka galay entrygiisii halkaasuu targetkiisa dhigtay suuqan ilaa halkaasuu soconayaa buu yidhaahday ilaa halkaasuu gaarayaa buu yidhaahday okay ilaa bartaasuu gaarayaa oo wuxuu soo taabanayaa bartatan buu soo taabanayaa buu yidhaahday ilaa halkaas soo taabanaya targetkayga halkaasa ka dhiganayaa buu ku leeyahay qofki suuqan traderkana muddo haysanaya stop losskaygana halkaasaa dhiganaya buu leeyahay kadib waxa dhacaya in tuso mudanayaal iyo marwe stop losska lagaga dhacay qofkii ujeeda stop loss ka dhacay oo soo laabtay tradekii fiir wixii dhacay kadibna tradeka hoos buu sii aaday ujeeda sel buu aaday hoos buu sii aaday waay marka qofka kan fiiri marka waa sababta aan idiin leeyahay sababtaas baan u joojinaynaa wax la dhaho inaynan u isticmaalin supporti iyo resistancy mudanayaal iyo murwooyin waa sababta uusan u habboonayn in uu qofku isticmaalo wax la dhaho support iyo resistance aan fiirino marka hadda aan falanqeyno lacagta tan mudanayaal iyo murwooyin anagoo one day ku fiirinayno isla one dayga hadda marka anigu waxaan adeegsado waa maxay istaraatiijiyadeedana asaaska u ah ardayda macadkana ay adeegsato haddii aad cusub tahay ama goobo kale wax kasoo baratayna aan ku leenahay adeegso waxa weeye suuqu halkan wuxuu ka sameynaya fiiri mudane iyo murwo simple wax fudud qof walba fahmayo qaab dhismeedka suuqa kan iyo waxaan u adeegsano kadibna hoos aad saa u fiirisid wuxuu suuqu sameynaya maxaan aragnay marka inuu suuqana noo sameeyay saaxiibayaal halka suuqan wuxuu ka sameeyay impulsive wax la dhaho ka sameeyay impulsive leg impulsive buu halka sameeyay dhaqaaqi impulsive ku halka ka sameeyay suuqi kadib suuqi muxuu noo sameeyay mudanayaal iyo murwooyin hadda halka dhigtid waxa arkaysaa waxa uu suuqu noo sameeyay baan rabaa inaan idinla wadaago idinna tuso suuqu halka ka sameeyay wax cajiib ah suuqu halka ka sameeyay hada u jeedaa waa maxay waxa cajiibka oo suuqu halka ka sameeyay waxa cajiibka uu ka sameeyay mudanayaal iyo murwooyin oo wax la dhaho correction buu ka sameeyay suuqu halka hada u jeedaa ka sameeyay correction ujeeda impulsive correctionka marka waxa la dhahaa patterns saaran patterns kala dushiis dhexdooda hadaad fiirisid hadda sii falanqeyno waxaad arkaysaan waxyaabaha halka ka dhalanaya ilaa inta suu sii soconaya balse muhiimadda anaga waxa saaraynaa halkan maxaan ka aragnay waxaan aragnaa
in suuqu halkan uu ka sameeyey 1 uu soo taabtay bartaas halkaas kadib uu sal soo aaday halkaa kale uu suuqani soo dhaqaaqay uu soo aaday sal halkan kalena 3 uu soo taabto suuqani soo dhacay ujeedaan si faseexa oo qurux badan kadibna hoos inuu lacagtani ay sida tan ka samaysay halkan ay soo taabatay 1 okay oo buy aaday halkan kale ay soo taabatay 2 lacagta tan maxaa ka sugaynaa hadda marka lacagta tan aan dul istaagno aan tagno waxa dhacay aan idin tuso marka sababta aan idin leeyahay iska joojiya support iyo resistance muxuu ku sheegay inuu buy ahaa okay waana ku siiyo tusaalayaasha maxaa sugaynaa soo qaad impulsive-ka cabirka suuqa kan waxa sugaynaa lacagta tan inay halka timaado soo qaad barta dhig ujeeda soma cabirkan soo cabiro cabirkaas impulsive leg-ka soo cabiro halka dhigo maxaa ka sugaynaa lacagta tan waxa sugaynaa in ay halka noo timaado oo sababtu imaanayso waa maxay impulsive-ka si fiican u soo cabiro ilaa intaas dhaqaaq oo suuqu soo sameeyay halka soo dhigo isla exactly inay barta ku timaado market structure-ka iyo qaab dabiiciga oo suuqu sameeyo waa la dhahaa market structure mudanayaal iyo marwooyin fiiriyo waxa dhacaya marka fiiri waxa dhacay maxaa kale ii sheegay inay lacagtani sal aadayso suuqu waxa uu sameeyay waxa la dhaho istiraatiijiyada darwish strategy baan ku arki doontaan waxa uu sameeyay dhaqaaq waxa uu sameeyay flag bullish flag kadib halkan uu tagay inuu suuqa soo laabto ta kale oo aad ku arkaysid oo cajiibka oo si kale ku tusi karo waa maxay waxaan ku tusi karaa inuu suuqani sameeyay halkan wax cajiib uu ka sameeyay mudana iyo marwo halka dhig kan kalena halka dhigo okay inuu suuqani sameeyay dhaqaaq oo halka ka sameeyay impulsive kan cabiro kalarka bedelo cadaan ka dhigo kadib waxa arkaysaa inuu halkan qaybtii dhexe middle section ka sameeyay qaybtii wuxuu ka sameeyay halkan sababta meeshaas mar walba uu channel samaysmay qayb dhuxul qaybtii dhexe uu samaysmay kadibna uu suuqii dhaqaaqay oo halkan uu gaaray cabirkan wuxuu leeyahay kan kadibna waxa sugaysaa suuqan inuu soo dhaadhaco oo hoos soo aado maxaa ku cadeynaya marka inuu hoos soo aaday ama soo dhaadhacay dhaqaaqi hore oo suuqu soo sameeyay soo qaado oo halkan ahaa kadibna barta dhigo exactly inuu halka ku yimaado correction buu galay soma impulsive correction continuation inuu suuqu sii socdo haye ma sameeyay tabtii ha uu sameeyay sug jeda soma isla kulli suuqu marka meel walba exactly bartii buu yimaaday jeda uu ka laabtay okay aan halka dul istaagno marka halka marka dul istaagno waxa arkaysaa market structure-kii marka cajiib waxa la ka yimaaday jeda bartii ka kala wareegay maxaa keenaya marka waa market structure-ka suuqa iyo qaabka inta yarta xataa halka haduu wax badan sii socon intuu kala wareego kala nasanaya 300 oo biiba ka qaadaysa market structure-kii way fiiri marka meesha tan aan dhigay usha tan aan dhigay xariiqita aan dhigay maxaa ka dhacay maxaa idin mar walba oo trend line ka sameysmo halkaas trend line houses impulsive buu suuqu soo sameeyay wuxuu sameeyaa correction kadibna uu sii dhaqaaqaya suuqu muxuu sameeyay suuqu halka wuxuu ka sameeyay correction buu ka sameeyay mudana yaaliimo impulsive buu ka sameeyay correction buu kale dhaqaaq suuqu sameeyo kale sii dhaqaaqay halka soo cabiro dhaqaaqa impulsive-ka soo sii cabiro impulsive-ka marka cabiratid intii oo kale impulsive kale inuu dhaqaaqay kadib suuqi muxuu sameeyay dhaqaaq buu sameeyay okay correction buu galay correction kan uu galay marka see ku ogaanaysaa inuu yahay baalki soo cabiro dhaqaaqo halka ka soo sameeyay iyo dhaqaaqo ilaa halka ka soo sameeyay ilaa intii oo kale uu dhaqaaqay kadibna bartii buu yimaaday mudana yaal isleeyihiin kan iyo kan mudana iyo marwo mudana yaal iyo marwooyin suuqa marka aad falanqeynaysid cilmiga iyo qaabka uu ku dhisan yahay waa market structure-ka waa sababtan ku leeyahay charts-ka la sheekayso iyo patterns-ka iska jooji support iyo resistance waan hubaa inaad nijaxaysid suuqana guul la taaban kara ka gaaraysid waa mahadsantihiin mar iyo marar badanba waan hubaa inaad guul la taaban karo aad ka gaaraysaan suuqa kan idinka oo meel walba daafaha dunida ku sugan inaad meel walba lacag ka sameynaysid charts-ku marka waxyaabaha ay cajiibka ku yihiin maxaa ka mid ah markaad fiirisid waxa kamid ah hada soo jirtid kan qaybta tan waxa arkaysaa iyo qaybta tan inay yihiin isku mid inay isku qaab sameeyeen halka hadaad fiirisid laakiin soo jirtid inay isku qaab sameeyeen ba arkaysaa mudana iyo marwo inay isku qaab sameeyeen ba arkaysaa cajiib inay sameeyeen isku qaab baad dheehanaysaa kadibna ay soo jabseen dhaqaaqa kani
halka uu kasoo sameeyey inuu kanoo kale kana uu sameeyey isku meel ka sameeyeen waa market structure-ka waan hubaa haddaad chartiska la sheekaysato baratina suuqan guul ka gaaraysid waxay dii rajeynayaa guul iyo farxadda noocyadeeda kala duwan waa mahadsantihiin muddan ayaa